ku soo dhowow Somali Magazine. maamulka madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku wargeliyay Koongareeska lacag gaaraysa 3.20 bilyan oo dollarka Mareykanka oo hub Imaaraadka Carabta la doonaya in loogu iibiyo oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee F-35 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hub kale bishii November sanadkii 2020. tani waxay timid 2 bilood kadib markii Imaaraadka Carabta uu heshiisyada nabadeed ee Abraham Accord uu la saxiixday Israa'iil, waxaana saacadihii ugu dambeeyay madaxweyne Donald Trump Imaaraadka Carabta ay saxiixdeen heshiis ay ku iibsanayaan 50 diyaaradaha dagaalka ee F-35 kuwa aan duuliyaha lahayn iyo hub kale. laakiin maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa markii talada Mareykanka ay la wareegeen waxay amar ku bixiyeen in heshiiskaasi si ku meel gaar ah loo hakiyo dibna loo eego. iyadoo taasi ay jirto ayaa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu bishii Abriil ee la soo dhaafay sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo in horey uu sii wada iibka isla markaana Imaaraadka uu noqon doono wadankii ugu horreeyay ee Carbeed ee iibsada nidaamka diyaaradaha F-35 loo yaqaano. laakiin Imaaraadka Carabta oo ka carooday cagajiidka dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskaasi ay ka bixi doonaan maadaama looga baxay qaar ka mid ah qodobadii hore loogu heshiiyey kadib markii la saxiixayay heshiiskii Abraham Accord. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa hadal jeediyay maalin kadib markii caradaasi ay muujiyeen Imaaraadka Carabta, waxaana uu sheegay inay u diyaar garoobayaan in hubkaasi laga iibiyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. falanqeeyayaasha qaar waxay aaminsan yihiin in xeeladda gorgortanka maamulka madaxweyne Biden uu soo jeediyey iyo hakinta heshiiska Imaaraadka looga iibin lahaa diyaaradahan inay tahay farsamo gebi ahaanba lagu baabi'inayo heshiiskaas. sidoo kale Mareykanka ayaana ku farxin booqashadii dhowaan magaalada Tehran ay ku tageen wafdi ka socda Imaaraadka Carabta, kuwaas oo ujeedkoodu uu ahaa inay dhalaaliyaan barafka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Iiraan. waana taasi midda keentay in dib loo dhigo qorshayaasha Imaaraadka Carabta la doonaya in diyaaradahani looga iibiyo. sidoo kale khubarada dhanka amniga waxay qabaan in Mareykanka inta badan hubka uu ugu iibiyo dalalka dibadda shuruudo aad u adag. shuruudahaasina waxaa ka mid ah in mararka qaarkii kiri ay noqoto halka ay ka ahaan lahaayeen kuwa iiba, halkaasoo iibsaduhu ay tahay inuu ku heshiiyo ama uu saxiixay heshiiska dhigaya sidii hubkani loo keydin lahaa kadibna loo isticmaali lahaa. waxaa jira dalal dhowr oo qaaradda Yurub ka tirsan oo Mareykanka uu ka iibiyo diyaaradaha F-35 balse looga iibiyo shuruudo aad u adag oo ay ka mid tahay inay ilaaliyaan sirta iyo xogaha diyaaradan. Mareykanku wuxuu aad ugu dadaalaa sidii sirta iyo xogta diyaaradan aysan adduunka oo dhan u gaari lahayn, isla markaana ugu ilaalin lahaa Shiinaha iyo Raashka oo cadowgiisa koowaad. taasina waa sababta Washington ay u baabiisay heshiiskii Turkiga looga iibin lahaa diyaaradahan kadib markii xukuumadda Ankara ay soo iibsatay nidaamka difaaca gantaalada Ruushka ee S-400. sidoo kale markii dowladda isutaga Imaaraadka Carabta lagu tuhmay inay saaxiib dhow ay la tahay dowladda Shiinaha, waxaa lagu warramayaa in Mareykanka sirdoonkiisa xogtaasi ay heleen dibna loo dhigay in Imaaraadka Carabta diyaaradahan laga iibiyo. sugidda iyo xaqiijinta sirta iyo xogta diyaaradan waxay Washington u tahay mid muhiimadeeda gaar ahaaneed u leh, waxaana xitaa ay diyaar u tahay in xitaa qaar ka mid ah dalalka xulafada gaashaanbuurta NATO aan laga iibin haddii ay jirto cabsi ah in wax tanaasul aan laga gaaraynin ilaalinta sirta diyaaradan. markaasi suurtagal ma ahan inuu ka iibiyo Imaaraadka Carabta oo hadda bilaabay in xiriir uu la sameeyo dalalka Iiraan, Turkiga, Raashka iyo China oo dhammaantood ay ishayaan dowladda Mareykanka. Israa'iil ayaa diyaaradani heshay sanadkii 2016 waana horumar weyn marka la eego sharciga Mareykanka oo dhigaya in Mareykanka uu ilaaliyo horumarka tayada leh ee Israa'iil ay ka sameynaysa gobolka, taas oo wadada u sii furaysa suuragalnimada in diyaaradani laga iibiyo Imaaraadka Carabta.